بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kasto joogtaan waxaynu halkan ku bilaabi doonaa insha Allah barnaamij cusub oo inoo bixinay fikir iyo falanqeyn barnaamijkan waxaan ugu talagalnay insha Allah inuu ka duwanaado barnaamijyadii hore aad nooga barateen wuxuu noqon doonaa barnaamij mawaadiicda ama mawduucyada uu sidaa ay ka kooban yihiin bilowga 4 mawduuc kadibna 4 mawduuc ay aqoon-yahano badan oo kala duwan inagala qayb qaadan doonaan haddii la yiraahdo mawduuc kastaana sidiisa si gaar ah inta loo dul istaago maaragtay wixii su'aalo ah ama tacliiq ah ama comments ah lagu dari doono marka uu soo jeediyo mas'uulka ku qoran ama aqoon-yahanka ku qoran barnaamijkan insha Allah qaybtiisan hore waxay nagala qayb gali doonaa Sheekh Almis Xaaji Yaxya Ibrahim oo barnaamijka gurigiisa ku duubano waxa kale oo nagala qayb gali doona Sheekh Cabdixakiin Maxamed Axmed waxa kale oo nagala qayb gali doona Sheekh Xasan Ismaan Ismaaciil waxa kale oo nagala qayb gali doona Sheekh Cabdirasaaq Xasan Rako saasoo kale waxay nagala qayb gali doona aqoon-yahano kale oo insha Allah barnaamijyada dambe aad ku arki doontaan barnaamijka koobaad maanta waxay noogu qornaanaya Sheekh Cabdixakiin Maxamed Axmed waxaanu ku saabsan yahay waa maxay hawiyadu waa maxay ama identity-gu muxuu yahay islaamku sidee buu arkaa identity-ga iyo qodobada kale la halmaala marka koobaad iyo ogolaada inaan dhammaan ku soo dhaweeyo culimada ku soo dhawaada barnaamijka mar labaadkii waxaan Cabdixakiin baan u dhiibanaa mikrofoonka Cabdixakiin ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم شهر مبارك إلهي نو بركي بشن بركيسن أنو قدقو تيو إلهي أعماشين وكو أقبل لها موضوعا كهضل يوا أفعربي وحا لقو إلى هذا الهوية أفك إنجليسي وحا لقو إلى identity magaca Soomaaliya waan u waayay bidaaqadan yare ama identity-gan aynu qaadano Somaliland ka soo baxda waxa ku qoran kaarka muwaadinimada aqoonsi way noqon kartaa marka aqoonsigaasi muxuu yahay muxuu qof kastaba aqoonsiga lagu aqoonsanaya ama ummad kasta waxa lagu aqoonsanaya ama wadan kasta waxa lagu aqoonsanaya muxuu yahay ayay tahay marka af carabiga hadii aan eego alhuwiya oo hada la godo waxay noqonaysaa macnaha aynu had iyo jeer isticmaalay ka soo baxaysaa huwa yani wuxuu yahay isagu huwa marka alhuwiya waxa weeyaan waxa lagu garto qofkaas ama ummadaas ama dadkaas dadku marka haday yihiin ama in isku ururtay ama haday yihiin dad wadan samaystay ama haday yihiin dad wadamo badan ka tirsan oo meel isugu yimaada intaba ahaatee waxay markaa leedahay macne lagu macnayn karo oo ah waxa weeyaan huwiyadu waxa ay dadkaasi aaminsan yihiin ama qofkaasi wuxuu aaminsan yahay kaarkan aqoonsiga aynu qaadano waxa lagu qoraa qofka magaciisa goortii uu dhashay meesha uu ku dhashay dadka qaarkoodna waxay raaciyaan diintiisa meelaha ay ku jiraan dad diimo fara badan lehi meelaha qaarkoodna waxaa nooca uu dhiigiisu yahay baa la raaciyaa laakiin taas waa waxa qofkaas waa in yaroo ka tirsan waxa qofka lagu garanayo kuma jirto waxyaalihii kale ee qofka ka buuxay marka waxay leedahay hadaba arkaan ama canaasir ama wax budhig u ah hawiyada lagu garanayo qofkaas waxa ugu horeeya waa diinta waxa lagu garanayo ee identity-ga qofkaasi ama aqoonsiga ummadaasi ku soo baxaysa ee ugu horeysa waa diinta waxa ku xiga waxa uu qofkaasi aaminsan yahay ama qofkaasi sida uu ula dhaqmo dadka kale dhaqanka
waxaa ka mid a fikirka, waxaa ka mid a meesha uu ka soo jeedo, ama ahaato qabiil, ama ahaato wadan, ama ahaato qowmiyad, ciday doontaba ahaatee meesha uu ka soo jeedo ayaa ah. waxaa ka mid a waxyaalaha aasaasiga u ah identityga ama aqoonsiga, geographiga, meesha uu ku nool yahay, meesha uu ku nool yahay waa ka mid, taariikhda uu leeyahay, ama isaga ahaato ama ummadda uu ka tirsan yahay ahaatee, taariikhduna waa ka mid, luqada wuxuu ku hadlayo. hadda waxaynu nidhaahnaa dadka af soomaaliga ku hadla, marka dadka af soomaaliga ku hadlo oo dhan guud ahaan isku identity baynu nahay, aynu sii kala googo'no, laakiin guud ahaan isku identity baynu nahay. waxaa ka mid a sidaan horeba usoo sheegay, dhaqanka iyo taariikhdu waa wax weyn oo arintaa ka tirsan. haddaan haddaba mid mid usoo qaato, waxay tahay diinta ayaynu nidhi. marka innaga hadda soomaali ahaan waxaynu fahansannahay in ay diinteennu muslim tahay, oo qofka muslimka ah marka la sheegay qofka soomaaliga ah, markiiba waxaa maskaxdaada imanaysa inuu qofkaas soomaaligii muslim yahay. marka diinta islaamkuna dee waxyaalo fara badan bay dhigtaa, dadka qaarkood way iltizaamaan, dadka qaarkoodna ma iltizaamaan, laakiin guud ahaan diinta muslimka ayaa qofka soomaaliga ah raacsan. waxaa kaloo raacsan sida uu qofkaasi dhaqanka uu leeyahay, oo dee dhaqan horeynu lahaan jirnay. haddaad eegto dhalinyaradeenna, haddaad eegto dadkii soo koray waktigii isticmaarka iyo waktigii isticmaarku intaanu inoo iman wixii ka horeeyey, waxaa suuragala beryaha ka mid a, sida aynu taariikhda ku hayno, qofku haddii uu gashado surwaal waa lala yaabi jiray, oo waxaa la odhan jiray waa waxani. marka dhaqankii berigaa jiray bay ka duwanayd, oo waxaynu dhaqan gooniyaynu lahayn. laakiin hadduu qofku khamiis qaato, berigaa waxba may ahayn, oo dee qofkaa sheekh baaba la odhan jiray, oo waxaa loo haystay in uu qofkaasi sheekh yahay oo uu diinta yaqaano, waa hadduu khamiis qaato. laakiin haddii uu surwaal qaato, waa inuu qofkaasi isticmaarka ama la socdo, ama uu ka mid yahay, ama qof u tarjamayo oo u ah inuu yaho kalaa la odhan jiray. marka dhaqankeenna hore waxaa xitaa ku xidhnaa waxaynu gashanayno. haddii aad eegto hadda waxa la gashado, dee waabad la yaabaysaa, waxaad odhanaysaa xagguu dhaqankani ka yimi hadda socdaa. oo markuu inanku intuu timihiisii badh xiiro uu badhna daayo, marka aad aragto in uu gashado surwaal yar yar oo ku dhajisan, waad la yaabaysaa. inantu waxay gashanayso markaad aragto waad la yaabaysaa. haddana waxaasoo dhani ma bedelayaan qofka hawiyadiisa, laakiin waxay ka qaadayaan in uu u yaro durko ciddii markaa isticmaarka ahayd ee uu kaga dayanayey waxan. dee kaa hore isticmaarkii wadanka haystay buuba kaga dayanayay, kan maantu wuxuu arkayaa dadka maanta adduunka u taliya, ama nimanka filimada matala, ama wuxuu ku dayanayaa kuwa kubadda sida wanaagsan u ciyaara, ama wuxuu ku dayanayaa waxaasoo kale ah. kuma dayanayo iyaga intii wanaagsanayd siday. waxaa laga yaabaa dee dadka aynu ku dayanayno, dad wanaagsanna way leeyihiin, dad xunxunna way leeyihiin. markaan ka hadlayo weeyaan dadka maanta adduunka u taliya ee la yidhaha international community, ama bulshada caalamka ee uu u horeeyo Maraykanku. dadka maanta lagu daydo, ama aflaamta ahaato, ama ciyaarta ahaato, ama heesaha ahaato, waxay doontaba ahaatee lagu daydaa, waa dadka noocaasa. dadka noocaasa yani haddaad eegto dadkooda muxtaramiintiihi, sida ay maanta u xidhaan kuwa ama heesaya ama filimada matalaya maaha. marka hawiyadii waxaynu ku soo koobaynaa in uu qofku identitygiisu ahaado dhaqankiisa iyo diintiisa iyo taariikhdiisa iyo geographically ama juqraafi ahaan meesha uu ku nool yahay ee uu ka tirsan yahay. waad mahadsan tahay, aad baad mahadsan tahay. waxaynu samaynaynaa aad baad mahadsan tahay sheekh cabdi xakiin. imika niqaashkeenu wuxuu noqonayaa
marka haddaba hawiyada uu sheekhu tilmaamay hordhaceega uu sheegay ee labiskii leh qofka maaragtay diintii leh ee dhammaan xayndaabyo badan waxyaalo badan ay ku xiran yihiin haddii aan imika sheekh almis oo kale sheekh almis waxaad ka warrantaa aqoonsi qofkaasi marka la leeyahay مثلا هوية قفك الصومالي بانهاي أما الصوماليلاندر بانهاي أما الجيبوتيان بانهاي تصالحان أما إثيوبيان بانهاي قفك مركلها أما السعوديان ميل بو شيغنا يا وشيغنا إنه ميل كتيرسية dadkii iyagoo meelo kala duwan ka tirsan ayaa dadka muslimiinta waxa midaynaysa hawiye guud oo ah hawiyadii islaamka marka sidee u qaabeynaysaa islaamku sidoo u qaabeynay diinta islaamka hawiyada guud marka bal qodobka hadii aad wax kaga darto بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه وسلم جزاك الله خير يا شيخي شيخ عبد الحكيم لا خير هسيو سي wanaagsan qurux badan buu soo dhigay wuxuu marka qofkii zamankan aynu joogno imika wuxuu lahaan karaa intaasoo haweedood oo kala duwan oo aad moodo sidii tabaqaadka oo kale isdul saaran midii caalamka muslimiinta oo dhan bay ku cusub tahay wadannada muslimiinta ay ku cusub tahayo waxa weeyaan waxa la yiraahdo alhawiya siyaasiya oo waxaan la yiraahdo ad-dawla al-qutriya nation state waxaan yiraahdaan way inagu cusub tahay inaga wadannada muslimiinta way inagu cusub tahay oo markii khilaafadii muslimiintu ay burburtay awal muslimiintu xuduud may lahayn wadana may kala lahayn baasaboor may kala lahayn dadka isku dhex socda ayay ahaayeen khilaafo islaam wax la yiraahdo weyn ay muslimiintu ku dhex noolaayeen gumaysi baa inoo yimid dawladii muslimiinta ka dhaxaysay baa burburtay kadibna waxa samaysmay waxaan la yiraahdo ad-dawla al-qutriya ayaa samaysantay oo halka waxa ka samaysatay marka cid walba inay geographically meel xiratay xuduud gaar ah lahaatay markaasoo jaamacatu duwal al-arabiya oo in la yiraahdo inta dhowr iyo 20 ka dawladoodii ayay kala noqdeen dawladaha isku taga Afrikada intaasoo dawladood ayay kala noqdeen Yurubtii lafteediba intaasoo dawladood European Unionku intaasoo dawladood buu kala noqday marka horta qodobkaasi waa qodob ku cusub fiqiga muslimiintana ku cusub taariikhda muslimiintana ku cusub kala googo'a muslimiintu ay kala googo'ayaan waxaad moodaa marka maanta in fuqahadii muslimiinta mucaasirka ahaa inay la qabsadeen arrinka inay ictiraafeen aad moodaa oo ah war inaga oo muslimiin oo dareenkii caqiidadii muslimiintu ay naga dhaxayso oo dareen midnimo leh oo naga dhaxayo ayuu cid walba gobolka ay joogto aqoonsigiisa gaarka ah horta kaas waa kow kadibna waxa bilaabmaya kii midabkiyo dadka madoobina sibay u wada joogaan Afrikadu sibay u wada joogtaa oo isaga laftiisi sibuu macna u sameynaya waxa isagana kor marka hoos hadaa u sii dhaadhaco qabyaaladii uu Sheekh Abdi Xakiim sheegay laftiisu qabyaaladii lafteedii waa soo socota marka iyadna waxa weeyaan isna waa hawiye kale oo aan laga talaabsan karaynin day oo xaqiiqa laga hadla mudan marka aniga oo muslim ah oo muslimiintii dareen iyo hawiye iyo inaan ka mid ahay aaminsan ayaan haddana waxaan ahay Afrika degan ayaan haddana waxaan sii ahay geeska Afrika sii degan ayaa haddana ethnic ahaan aan ahay Soomaali jooga marka intaasoo identity oo isdaba yaala ayuu qofkii uu samaysmayaa ta ugu dambeysay soo siyaado Somaliland oo raadiyada oo yadna haka daba gelis hayadna oo saas u soconaysaa marka war waxaas isla ay kala wada yihiin waxaan isleeyahay way is aqbalayaan isma burinayaan Allahu a'lam jazakallahu khair kusoo dhaweeyaan Xasan labiska kale isna soo hadal qaaday labisku مثلا dadkii isticmaalka la shaqeyn jiray markii surwaalka xidhaanaas in dadku ay moodaan ba inuu yahay nin maaragtay British midabka kala lahaad buugaagtana marar badan oo la qoraad ku arkaysaa dad midabkeena leh dharkeena xidhan haddana afkaartii ay culimadu markay naqdiyaan afkaar cid kale sita marka labiska laftiisu bal markaad eegto sidoo qaabeynay hawiyada bismillaahir rahmaanir rahiim martaba waa mowduuc runtii aad u qiimo badan waan moodaa mashaakilka caalamka islaamiga ka taagan meelaha fahamkeedu ay u baahan tahay in la saxaynay ka mid tahay qofka muslimka horta marka hore dadka wax badan baa kala qaybiyeen bini aadamka midab baa kala qaybiya diin baa kala qaybisa
waxa kala qaybiya maxaa qurdi ama meelo ay degan yihiin oo gobollada kala qaybiya laakiin qofka muslimka marka hore jinsiyadiisa rasmiga oo hawiyadiisa ka soo baxaysa waa caqiidadiisa weeyaan marka ugu horeysa wayo ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu nagu leeyahay sibqatullah waman axsanu min allahi sibqa markaad imika eegto waxa weeye qofkiibaa la cadaynaya ilaahay subxaana wa tacaala qofka bini aadamka muslimka wuxuu yahayba halkaa la dhigayaa moogta marka ma ka bedelayso inaad masalan qofka muslimka jooga imika Malaysia ama Maraykan jooga meeshu doona ha ku noolaado midabku doona ha lahaado luqadu doona ha lahaado waxay wadaagaan qofkan kale muslimka ah aqeedada rasmiga iyo hawiyada rasmiga bay wadaagayaan masalan imika qadiyaadka runtii arrinka taabatay sheekhuna jazakallahu khayran aad u sharxay waxa weeyaan waxyaalaha mujtamacaadka taabta waxa kamid ah isku dayasho maxay ka bedeli kartaa qofku inuu bedelo noociyada uu isagu nool yahay akalkiisa dharkiisa habku hadlayo luqadda uu baranayo iyo horumarka qofkan bini aadamku doonayo inuu gaadho cilaaq ma ka dhaxaysa waana halkaad muddo runtii dad badan oo muslimiin ahi ama dhallinyaradeennan dadkeena xitaa inagu joogno in aad loogu halumay inuu la iska yeelo maaragtay inaad iska yeesho qof kale oo aad leedahay uu kaa sarreeyaa oo cilmiyan buu kaa hormaray ama wuxuu kaaga horeeyaa technology مثلا إمك بسيط هذا نسوق هذا اليابان وودنا تكنولوجيا ugu horeeya teknolojiyada waxay ka qaateen in badan sideen la socono oo culimada u soo diri jireen waxay ka qaadan jireen dadka la maaragtay in Europeanka ama wadamada qarbiga qarnigii 19aad marka horumarka badan la yimaadeen Japan kamay qaadanin wixii loo oran jiray ama aqeedadoodii ama dhaqankoodii ama akalkoodii ama dhirkoodii ama labiskoodii waxyaalaha isticmaalayeen may soo qaadanin laakiin waxay soo qaataan wixii bini aadamka u faa'iidadaha waana halka ay tahay runtii in dadka muslimiinta kaga daydaan oo inaad u labisato sida ninka magaranaysaa ee kalaas leedahay dee aqoon buu gaadhay waa teknolojiyada maalin walba meeyay gaadhaa ama u socotid ama guurkaaga ka dhigtid ama cuntadaada ka dhigtid ama maxarda steelka aad u labisanaysa aad ka dhigtid iyo cilaaqa kama dhaxayso horumarka bini aadamku kala qaadanaya kama dhaxaysa hawiyaduna waxay u baahan tahay qofku inuu fahmo war waxaan aad haysataa adiga intaba adduunyada ka tahay وهذا هي مهم جدا marka يعني muslimiintu waxay leedahay wax ay kaga horumarsan tahay adduunka laana diintan xaniifka ba ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu keenay yani maanta wadiga arkayda aham shay inuu aragno waxyaalahan maanta ka dhacay adduunka ee maanta hadaskan ajiibka maanta dhacay adduunka oo dhan uma hayo ilaa wixii dhaqanka muslimiintu lahaayeen mooyaane oo diintoodii ahayd war hal kala fogaado guryaha la galo waa yalla isu dhaqaaqin intiiba xal noqotay moogtay marka inuu qofku muslimku ogaado horta waxa isagu hayo laakiin hadduu ka cararo muslim baa tahay ama Soomaali baa tahay ama Arab baa tahay ama caynkaas aad tahay labiska ninka iyo dharkiisa iyo arkiisa qaado hada huwa waxweeyaan halka khadoo ka imanaya